halkani waa deersame iyo anigoo ah Axmed Deeq Xasan. 6 qodob oo ay tahay in aad sameyso si aad lacag u kaydsato adiga oo mushaar yar qaata. Tiro badan oo dadka shaqeeya ah, dunida waxay qaataan mushaar, iyaga oo ka cowda yaraanta mushaarka iyo inuusan ku filnayn noloshooda. Dadka qaar waxay ku qasbanaadaan inay qaateen dayn si ay nolol macquul ah ugu noolaadaan, iyaguna waxay ku qasbanaadaan muddo dheer inay kamaysnaydaan. Sida ay sheegaan inta badan dadka dhibaatadan ay hasato, muddo dheer ayay ku qaadataa inay deymahaas gudaan, taas oo gelisa nolol walwal leh, dhaqaalaha soo galana ay ku bixinayaan daynta. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka faalooda dhaqaalaha ayaa sheegay inay hayaan talooyin laga yaabo inay caawiyaan dadkaas, kuwaas oo ay ku samaysan karaan qorshe ay ku koriyaan dhaqaalahooda. Qodobadan ayaa ka mid ah kuwa ay soo jeediyeen. 1. Daynta isaga bax. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay midda ugu muhiimsan ee lagu taliyo dadka mushaarka soo gala uusan buurnayn, iyaga oo u sababeeyey in ay tahay sida god weyn oo dhuuqaya wax kasta oo ku soo gala, marnaba aan buuxsamayn. Maadaama godkaas weyn aadan ka dulbilaabi karin dhisme aad doonayso inuu kor u dheeraado, ayay leeyihiin khuburado waxaa wanaagsan inaad gebi ahaanba aasto. Inta badan sababaha keeni in dadku daymoobaan ayaa kuwa laga maarmi karo, waxaana ka mid ah in qofku rabo inuu waxyaabo qaali ah iibsado iyo iibsashada waxyaabo aan muhiim u ahan nolosha qofka. 2. Sii qorshee sida aad lacagtaada u bixin doonto ka hor inta uusan mushaarku soo dhicin. Marka aad iska bixiso oo aad ka dhammaato daynta ayay kuu bannaan tahay inaad kor u qaado dhaqaalahaaga. Sababta ay tahay inaad qorshe u samayso mushaarkaaga ayaa ah inaadan isticmaalin lacag aan kaa goyn, taas oo dayn madaxa kuu gelin karta. Marka aad si wanaagsan wax u qorshayso ayaa xitaa laga yaabaa inay kuu soo harto lacag aad si kale oo faa'iido leh u isticmaali karto. 3. Wax dhigo waxna maalgasho. Waxaa jira qaabo badan oo dadku lacagtooda u dhigtaan. Dadka qaar waxay isticmaalaan qaabka ay u dhigaastaan. Tusaale ahaan, waxay isticmaalaan 40% mushaarkooda, 30% waxay u isticmaalaan noloshooda gaarka ah, halka ay dhigaashadaan 30% oo kale. Kuwa kale waxay meel dhigaan tiro cayiman oo dhaqaalaha soo gala ah, ama si kale ayay u maalgashadaan, sidaas ayayna uga haraan. Balse si walba oo ay noqoto, waxaa habboon ayay ku taliyaan khubaradu inaad meel dhigto wax uun ka mid ah mushaarkaaga, weliba in aad u samayso qaab joogta. Ugu dambayntani waxay kuu suura gelinaysaa inaad hesho cadad lacag ah oo kuu kaydsama. 4. Kaydi xoogaa lacag ah oo aad ugu talagashay waxyaabaha soo boodada ah. Qayb ka mid ah mushaarkaaga ayaa wanaagsan inaad meel u dhigato waxyaabaha aan markaas taagnayn ee laga yaabo inay noloshaada ku soo kordhaan. Tani waxay kaa saacidaysaa inaad hesho lacag aan ka mid ahayn midda aad isticmaalka ugu talagashay iyo tan kaydinta aad ugu talagashay, balse kaa dabooli karta wax walba oo la soo darsa noloshaada. Sidoo kale, haddii aanay dhicin wax degdeg ah oo ku soo kordha noloshaada, waxay kaa caawin doontaa in aad hesho wax kale oo dheeraad ah oo aad ku sii darto kaydkaagii ama maalgelinta aad samaysay intaba. 5. Samee il labaad oo dhaqaale. Waxay sheegaan khubarada dhaqaaluhu in lacagta kaas oo gasha hal meel marka aad tahay qof mushaar yar qaadanaya aysan kugu filnayn inaad meel wax ka dhigato. Sababtoo ah qaabka noloshaada ayay hal meel ku koobaysaa, adiga oo aan awoodi waayin inaad ku noolato nololaha qaar. Marka aad sidaan u hesho 2 fursad oo aad ku heli karto 2 ilo oo dhaqaale oo kala duwan, waxaa ku suura geli doonta in aad kaydsato dhaqaale aad xitaa u isticmaasho mustaqbalka inaad ku ganacsato ama maalgelin fiican aad ku samaysato. 6. Iska jooji dabeecadaha aan habboonayn. Waxaa hubinti ah in dabeecadaha maalinlaha ah ay u muuqdaan inaysan wax dhibaato ah noloshaada ku ahayn, balse waxay ku quusi karaan badweynta saboolnimada ee aadan dhaqso uga soo kabsan karin. Waxaad u baahan doontaa inaad dabeecadahaas fahanto sida ugu dhaqsaha badanna aad isaga joojiso.